Asalaamu calaykum daawadayaal. Halkan waa xogta qarsoon. Muuqaalkani waxaan kaga hadli doonaa weeraradii 11 September. Daqiiqad maxaa ka dhacay 20 sano ka hor Mareykanka, sida ay wax ugu dhaceen guud ahaan dalka xilligaas lahaa awoodda la dagaalanka argagixisada, balse ugu dambeyntii isagu daarihiisii ugu waaweynaa la burburiyay. Muuqaalkani ayaan kusoo koobi doonaa daawade. haddii ay tahay markii ugu horeyso bartan ay kusoo gaarto, bartan waa xogta qarsoon. Magaciiguna waa Yaxye Maxamuud Maxamed. waxaan kaa codsanayaa inaad igu soo biirto oo aad channelka subscribe saarto. Hagaag, waxay ahayd xilli aroor ah oo ay taariikhdu ku beegneed 11 September 2001. afar diyaaradood oo lasoo afduubta ayaa ku burburay laba dhismo oo taariikhi ah oo Mareykanka ku yaal, kuwaas oo astaan u ahaa awoodiisa dhaqaale, siyaasadeed iyo military ba. weeraradii September 11 oo ay ku dhinteen 2996 qof ayaa waxay ahaayeen kuwii ugu weynaa ebed lagu qaado cariga Mareykanka. cawaaqibkiisuna weli waa la dareemayaa ilaa iyo maanta. weeraradan kadib ayay bilowdeen waxa loogu yeero dagaalka ka dhanka argagixisada ee Mareykanka uu horkacayo, waxaana ka mid ahaa duulaankii Afghanistan iyo Ciraaq. marka loo eego heer shakhsiyadeedka, jiilan ayaa weli xasuusanaya halkii ay joogeen markii ay maqleen weeraradii dhacay taariikhdaas. waatan sida 149 daqiiqo oo fowdi argagax leh ay kaga dhaceen subaxaas Mareykanka 20 sano ka hor. 7:59 daqiiqo duulimaadka American Airlines Flight 11 AA11 waxa uu ka duulayaa gegida diyaaradaha caalamiga ee Logan ee Boston, isagoo kusii jeeda Los Angeles. duuliye ku-xigeenkiisa iyo 9 kaaliya diyaaradood ayaana saarnaa. waxaa kaloo saarnaa 81 qof oo rakaabka iyo 5 afduubayaal ah oo uu hogaaminayay Maxamed Alta oo u dhashay dalka Masar. qorshaha weerarku uu socday xilligaas. Maxamed 5 sano ka hor ayuu saldhigga Al-Qaacida ee Afghanistan ka soo baxay. Khalid Sheikh Maxamed oo ah dagaalyahan Bakistaani ah oo loo arkay inuu yahay ninka wax ka soo abaabulay weerarada, ayaa la yimid fikradda ah in Islaamiyiintu tababaro duuliyaal, iyadoo ujeedadu ay tahay inay afduubtaan diyaaradaha oo u adeegsadaan sida hub ka dhan ah Mareykanka. qorshahan waxaa saxiixay hogaamiyihii Al-Qaacida oo ahaa maalqabeen u dhashay Sacuudiga oo raadeerka u saarnaa hay-adaha sirdoonka Mareykanka, kaas oo markii dambe noqday ninkii loogu doondoonista badan yahay dunida oo dhan. waa Usaama bin Ladenkii la dilay 8:14 daqiiqo ah. qaybta kale isla madaarka Boston, duulimaadka United Airlines ee 175 ayaa sidoo kale u duulay Los Angeles, iyadoo ay saarnaayeen 9 shaqaale iyo 56 rakaab ah. 5 ka mid ah waxay ahaayeen afduubayaal. isla mar ahaantaana duulimaadka AA11 afduubayaasha waxaa u suurto gashay inay galaan sagxadda duulimaadka oo la wareegaan maamulka diyaaradda koowaad. markii hore 2 ka mid ah shaqaalaha duulimaadka ayaa mindi lagu duray. marka xigta, Ata oo ah midka kale oo ka mid ah 5 afduubayaasha ee haysta tababar ku saabsan sida loo duuliyo diyaaradaha, ayaa ka kacay kursigiisii isagoo u dhaqaaqay qaybta diyaaradda laga hago. afduubaha shanaad ayaa mindi ku dhuftay qof rakaab ah. dhibanahu waa Daniel Lowin oo 4 sano la soo shaqeeyay ciidanka Israa'iil oo fadhiya kursiga ka dambeeya Ata, waxaana la rumaysan yahay in la dilay isagoo isku dayay inuu joojiyo afduubka. sida afduubyada kale ee diyaaradaha, shaqaalaha iyo rakaabka kale ayaa lagu qasbay inay u wareegaan xagga dambe ee diyaaradda. 8:20 daqiiqo diyaaradda American Airlines Flight 77 ayaa ka duushay gegida diyaaradaha ee Washington Dulles, Washington DC, iyadoo ay la socdeen 6 shaqaale iyo 58 rakaab oo ay ku jiraan 5 afduubayaal ah. bartilmaameedku waxa uu ahaa Los Angeles. 8:24 daqiiqo Ata waxa uu isku dayay inuu la xiriiro rakaabka, laakiin waxa uu riixayaa badhan qaldan oo wuxuu si qaldan ugu gudbayaa warka afduubka maraakiibta hawada ee Boston. wuxuuna shaaca ka qaadayaa inaysan ahayn hal diyaarad oo kaliya, balse dhowr diyaaradood la afduubtay. warka ku saabsan afduubka ayaa gaaray maamulka duulista hawada ee Mareykanka VA, oo ah wakaaladda maamulka hawada ee dowladda. 8:42 daqiiqo diyaaradda United Airlines Flight 93 ayaa ka duushay gegida diyaaradaha ee Newark, New Jersey, kuna sii jeeday San Francisco. waxay ahayd inay baxdo 8 subaxnimo, laakiin mashquulkii subaxnimo ee garoonka ayaa dib u dhigay duulimaadkaas. markay diyaaraddu ka kacisay diyaaradda labaad ee UA 175 ayaa la afduubtay xilli hawada ay ku jirtay.
8:46 diyaaradda AA-11 ayaa ka kacday North Tower oo ka mid ah daaraha mataanaha ee xarunta ganacsiga. 8:46 diyaaradda AA-11 ayaa ku dhacday North Tower oo ka mid ah daaraha mataanaha ee xarunta ganacsiga adduunka oo ka koobneyd 110 dabaq. waxaa la ogaaday inuu jiro weerar buuxa. Kirsten Levitt waxay waqtigaas ka shaqeynaysay dabaqa 99aad ee South Tower, waxaana ay aragtay diyaaraddii ugu horeysay oo soo socota. waxaan istaagay aniga oo barafoobay, maanan dhaqaaqin, mana dhaqaaqi karin ayay tiri. codkeeduna waxuu ka mid yahay kuwa badbaaday iyo qaraabada dhibanayaasha oo laga xasuusta weerarkii 11 September. diyaaradda ayaa gashay dabaqa 93aad ilaa dabaqa 99aad ee dhismaha, waxaana isla markiiba ay dishay 100 qof. waxaa la rumaysan yahay in sidoo kale dhammaan jaranjarooyinka dabaqa 92aad ay ka dhigtay kuwa aan la geli karin, taas oo 100 qof oo kala xanibtay. 8:47 madaxweynaha Mareykanka George W. Bush ayaa ku dhawaaqay inuu galo fasal ku yaal dugsiga hoos Emma ee Sarasota, Florida. xilligaas oo lagu wargeliyay in diyaarad yar ay ku dhacday mid ka mid ah daaraha mataanaha. Bush ayaa loo sheegay in weli aan lahayn xog intaas dhaafsiisan oo uu sii wado qorshihiisa in carruurtu wax u aqriyo. 8:56 10 daqiiqo kadib shilkii koowaad, waxaa soo haray meel yar oo ka mid ah dabaqyada sare ee North Tower oo ay dadku ugu gambanayeen kuleelka, dabka iyo qiiqa. sawirada dadka soo dhacay ama boodaya oo ilaa 300 mitir dhulka ka sareeya ayaa la arkayay. 9:01 xarunta VA ee hagista hawada ee New York ayaa ogaatay in diyaaraddii labaad UA-175 ay hawada soo gashay iyadoo aan cilad lahayn, balse waqtiga macluumaadka afduubka cusub ee suurtagalka uu gaaray VA waxaa goor dambe ku adkeyd in wax laga qabto. 9:03 diyaaradda tirsigeedu waxaa UA-175 ayaa ku burburtay South Tower, waxaana ay kasoo dustay dabaqyada 77 iyo 85. waa 17 daqiiqo oo kaliya kadib shilkii ugu horeeyay ee ka dhacay North Tower. kadib howlgalkii badbaadinta ugu weynaa ee taariikhda New York ayaa markaas socday. si ka duwan diyaaradihii hore, diyaaradda UA-175 ayaa hoos u dhacday shilka ka hor iyadoo ka ilaalinaysa qeybo ka mid ah dabaqyada aan bartilmaameedku ahayn. mid ka mid ah jaranjarooyinkii dabaqaas ayaa ahayd mid la mari kari waayey, laakiin soo degistu ma aanan sahlin. dabka, qiiqa, mugdiga iyo urta shidaalka ayaa mid adag ka dhigtay in dadka naftooda ay la baxsadaan. 9:05 markaas Bush wuxuu weli hor fadhiyaa ardayda 7 sano jirada ah, iyadoo madaxa shaqaalaha aqalka cad Andre Card uu si hoos ugu sheegay warka ku saabsan inuu dhacay weerarkii labaad oo lagu qaaday daarihii mataanaha. 9:24 wax yar uun kadib shilkii labaad ee daaraha mataanaha, American Airlines iyo United Airlines waxay qaateen go'aanka in mar dambe duulimaadyadooda ka duulin dalka oo dhan. Ed Billinger oo ah maareeyaha taraafikada hawada ee United Airlines oo leh in ka badan 40 sano waayo aragnimo ayaa go'aansaday in hal tallaabo hore ugu socdo oo uu dhigo duulimaad kasta maalintaas. 9:28 diyaaraddii saddexaad ayaa la afduubtay, waxaana hogaaminayay Ziad Jarrah oo u dhashay dalka Lubnaan. weeraryahanadu waxay ku celcelinayeen tabtii ay ku hanjabeen rakaabkii iyo shaqaalihii diyaaraddii hore ee ahaa in bam ay haystaan oo ay qarxinayaan, waxaana ay ku andacodeen in diyaaradda dib ay ugu celiyaan gegada diyaaradaha ayagoo qof walba u raraya xagga dambe ee diyaaradda. dhanka dambe ee diyaaradda, dadku waxay bilaabeen inay ka wacaan eheladooda taleefanada gacanta iyo taleefanada diyaaradda. dhowr mar kadibna waxaa loo sheegay in afduubayaashu aysan dhibsanaynin ayagoo arkaya inay ku hadlayaan taleefanka. ugu yaraan 37 wicitaan ayaa la sameeyey. sidaas ayay ku ogaanayeen weeraradii daaraha mataanaha ee ka dhacay New York. eheladoodii ayay wicin una sheegeen in taas mid la mid ah ay sugayso haddii aysan sameyn wax ficil celin ah. 9:34 waaxda cadaaladda ee Washington iyo saraakiisha waxay horey u ogaadeen diyaaradda saddexaad la afduubtay. garyaqaanka guud Theodore Olson ayaa warkan ka maqlay xaaskiisa Barbara oo ku jirtay duulimaadka AA-7. 9:37 diyaaradda AA-77 ayaa markaas lagu dhuftay derbiga galbeed ee Pentagon-ka.
dhammaan 64 qof ee saarnaa waa la dilay, sidoo kale 125 qof ayaa ku sugnaa xarunta waaxda difaaca ee Mareykanka. tobaneeyo kale ayaa si xun u dhaawacmay. inkastoo warka ku saabsan weerarka ay ku qatameen dhacdooyin cajiib ah ee ka dhacay daarihii mataanaha, shilkii ka dhacay Pentagon-ka ayaa xooga daboolay. madaxweyne Bush ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay in markaas ay markii uu ogaaday in wadanka dagaal uu ku jiro. diyaaradda koowaad waxay noqon kartay shil, midda labaadna hubaal waa weerar, midda saddexaadna waxay ahayd iclaamin dagaal, ayuu yiri Bush. 9:42 daqiiqo kadib weerarkii Pentagon-ka, waxay soo saartay tallaabo aan hore loo arag, iyadoo ku amartay dhammaan duulimaadyada ganacsiga inay si degdeg ah ugu degaan garoonka diyaaradaha ee ugu dhow. qiyaastii 4500 oo qof ayaa degay, waxaana markaas jira cabsi laga qabay hal diyaaradood oo weli hawada ku jirtay. waxay diyaaraddaas tirsigeedu ahayd UA 93 oo la afduubay, iyadoo raadeerkeediina la damiyey 9:57 daqiiqo. hadda shaqaalihii iyo rakaabkii diyaaradda UA 93 waxay ogaadeen inay halaagsami doonaan haddii aysan u dhaqaaqin siday u joojin lahaayeen kuwa weerarka soo qaaday. Alisa Hogland oo ahaan jirtay mid ka mid ah shaqaalaha duulimaadka ayaa 2 fariin oo cod ah u reebaysay wiilkeeda Mark Bingham oo saarnaa diyaaradda. Mark waa hooyada. warka ayaa in diyaaradiina ay afduubteen argagixiso. waxay qorsheynayaan in malaha diyaaradda ay u adeegsadaan bartilmaameed ay ku garaacaan goobo ka mid ah dhulka ayay ku tiri fariintii ugu horeysay. waxay ku celinaysaa talada fariinta labaad iyadoo si boobsiisa u hadlaysa. waxaa jira hal duulimaad oo yiraahdaan waxa uu ku wajahan yahay San Francisco, nabadgelyo. sida laga soo xigtay xogta loo gudbiyay dadka dhulka ku sugnaa, qof kasta oo saarnaa diyaaradda ayaa codeeyo oo go'aansaday in istiraatiijiyadda ugu wanaagsan ay tahay in lala dagaalamo kuwa weerarka soo qaaday. 9:58 daqiiqo iyadoo cabsida sii socota ayuu towerka koonfureed dumay, waxaana ay qaadatay 11 ilbiriqsi oo kaliya dhismaha oo dhami inuu burburo. qof kasta oo dhismaha ku jira waa la dilay, iyo xitaa weliba kuwa kale oo taagnaa wadada iyo hoteelka Marriott ee ku yaal dhismaha ganacsiga. 10:03 daqiiqo muddo 6 daqiiqo oo rakaabka diyaaradda UA 93 isku dayeen inay galaan qolka diyaaradaha si ay ula dagaalamaan afduubayaasha diyaaradda oo ay gacan ku hayntu la wareegaan. mararka qaar Ziad Shara waxa uu sameeyay inuu marba dhinac u rogo diyaaradda, isagoo isku dayay inuu rakaabka qalqal geliyo halka afduubaha kale uu albaabka xirayay. waxaa weli 20 daqiiqo u jiraan bartilmaameedkooda oo ahaa Washington DC. mid ka mid ah afduubayaashii ayaa ku qayliyay Allahu Akbar, Allahu Akbar. markan rakaabku weli waa ay sii wadaan weerarkooda. diyaaradduna waxay ku dhacday meel bannaan oo ku taal Jangavelia, Pennsylvania, iyadoo ku socota xawaare ka badan 950 kilomitir saacadii. ma jirin hal qof oo ka badbaaday burburka diyaaradda. aqalka cad ayaa dhowr daqiiqo qaatay inaan la ogaan in diyaaraddu ay soo rideen militarigii in kale. militarigu waxa uu haystay amaraha in diyaaradda la soo rido si looga hortago inay gaarto bartilmaameedkeeda oo la rumaysan yahay inay tahay aqalka cad ama dhismaha Capitol. waxaa tirada guud ee ku dhimatay weerarka ay tahay 2996 qof marka laga reebo 19 afduubayaasha ah. weeraradii September 11 waxay ahaayeen kuwii ugu dhimashada badnaa ee ka dhaca ciidda Mareykanka. waxay kaloo calaamad u tahay khasaaraha ugu weyn ee shaqaalaha samata bixinta ee taariikhda Mareykanka. magaalada New York oo kaliya 343 ka mid ah dhimashadu waxay ahaayeen damdamiyaasha. intaa waxaa dheer in 400 oo kun oo qof ay saameyn ku yeeshatay weerarada cawaaqibka ka dhashay weeraradii September 11, waxaana la dareemayaa ilaa iyo maanta. baacsiga Mareykanka ee Osama bin Laden ayaa horseeday duulaankii lagu qaaday Afghanistan, halkaas oo Al-Qaacida gabaad ay ka kana dhigan jirtay sanadkii 2001. caqiidadii dagaalka ka dhanka argixisada ee madaxweyne Bush ayaa markii dambe horseeday duulaankii Ciraaq ee 2003. 20 sano ayaa kasoo wareegatay weeraradaas. ka bixitaanka Mareykanka ee Afghanistan toddobaadyo ka horna waxay ahayd sanad guuro. waxaa ka muuqday rabshadihii jaawareer hor leh. Taliban ayaa mar kale kusoo noqotay awoodda. howlgalkii Mareykanka ee Afghanistan ayaana si rasmi ah loo soo afjaray. maantana waa la xusayaa 20 sano kadib weeraradii lagu qaaday Mareykanka. nabadgelyo daawade.